maxaa ka jira in farxiya fiska la sixiraday oo wiilka kan sixiraday mubaarak farxiya fiska wuu sixiraday hargeysuu ku dabraday gabadhii la yaqaano furfurnayd taleefanka qaban jirto asxaabteeda ka qaban jirtay iyo gruubyadeeda ma lahan taleefankii ma qabanayso oo xiriirkii ma jiro oo wax walba waa soo xirmeen remote control buu ka dhigtay bay intuu sixiraday wajigeedii waa isbedelay baa leeyahay jirkeedii waa isbedelay baa leeyahay mar walba waa xanuunsan tahay baa leeyahay rafaad baa ka muuqda oo iska wada sixirka calaamadihiisa maxaa lagu dareemaa qofku inuu qofka kala sixiraday oo guurka uu ku khasbaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalaha barakaysan waa idin salaamay dhammaantiin allah idin xafido ku soo dhawaada muuqaalkaani waxaan rabaa inaan oga hadlo arrin aad iyo aad bulshadu ay u waday oo saameyn yeelatay xaqiiqatan oo ku saabsan lamaanaha fanaaniinta ah ee lagu kala magacaabo mubaarak iyo farxiya fiska waxaa hadda la soo dhajiyey in la yiri gabadha tan ama haweeneydani ninkani waa sixiratay sixirkaasoo keenay in caalamkii kale ay ka goodo oo keligiis ay ku tasbiixsato keligiis ay ag meeraysato dad caan oo ka hadlayaan arkay dad faahfaahinayaan arkay ilaa markii dambe ay dhaheen sixirkaasi wuxuu keenay in xanuun halis ah oo ugubo cusub uu farxiya fiska ku soo booday kadibna isbitaal la dhigay waxaasay dadku wadaan hadda oo la baahinaya maxaa ka jira in farxiya fiska la sixiraday oo wiilka kan sixiraday qaarna dhinaca kale ka budkariyeen oo waxay dhaheen haddii sixir jiro wiilkaas sixiran leanna waa dhalinyaro iyadoo ayeydiis la eg ayay guursatay bay dhaheen waa la kala safta marka waarso iyo naato baa loo qaybsan laakiin xaqiiqada dhabta baan idiin sheegayaa bulshadan ka dhex jirta bulshada Soomaaliyeed ay ku dhex nooshahay khiyaaliga ay camiratay ayaa rabaa horta anigu inaan abbaaro lamaanaan hore baan uga hadalnay markii la hadal hayo la dhahayay oo ma qalmo nasab dhiman weeye ninku iyaduna waa nasab sare ayaa ka hadalnay oo muuqaal ka sameeyay laakiin midaan dib u soo cusboonaatay ayagoo nafiinaya inay xanuunsan yihiin in balaayo jirto nawaan dhageysto waan arkay laakiin dadka samanka hadda waxa ku yaraaday ilaahay inay ka baqaan baa ku yaraaday adduunyay raadinayaan kuwa shilimaan Facebook ay ka helayaan shilimaan yar oo bari masquul geynayo oo Facebook ka helaya dartood ayay bana u abuurayaan oo dhahay waa xanuunsan yihiin xanuun baa farxiya fiska ku soo baday waa sakaraad waa xilligii nabigu sheegay akhir samanka wallahi qofka lacagta markuu raadinayo xoolaha raadinayo raadin bay uga caddahay laakiin ma xalaal baa مسوا حرام ما كفكريو سمنكي با كون الله مبارك فرحيه فيسكا وو سحرday hargeysuu ku dabraday gabadhii la yaqaano furfurnayd taleefanka qaban jirto asxaabteeda ka qaban jirtay iyo gruubyadeeda ma lahan taleefankii ma qabanayso oo xiriirkii ma jiro oo wax walba waa soo xirmeen ifan xataa haday taleefanka qabanayso asagaysa inta u fiirisay waxay leedahay xaaji ma qabtaa ma la hadlaa balitus ma qofkaan la hadleen kan la hadal remote control buu ka dhigtay bay intuu sixiraday Soomaalida dhaqankay leeyihiin bay idin sheegaya markay arkaan wax aysan fahmayn oo fagaranayn sixir iyo xasad bay ku laraan ku dhajiyaan ku istaam karayaan dhaqanka kale leeyihiin waxa weeye haday arkaan lamaana iswata buuqoodu inuu yar yahay oo deganoo hawshooda hoos ka wata way sixiratay والسحرday waa dhaqanka waligiis jiray ilaa Soomaali maalintii la abuuray haday arkaan gabar iyo ninkeeda oo suuqa marayo gacanta haysta ama asagu ka soo qaad ilmihii uu wado ama ka soo qaad ay wada sheekaysanayaan qosqoslayaan magaaladan ay marayaan ama ay tagaan meel jawi ah ay ku qaadanayaan iyo maqaaxiyo ay fariistaan shaahi wax un cabayaan cunayaan ama asagu waa amaanayo ama iyadoo ay amaanayso isbitaalka uu raacayo danihii kala duwanaa uu la qabanayo saanta loo fiiriyaa la leeyahay mariya kan waa la sixiraday kan meesha loo tagay ma yara ayaay laana inteena badan waxaynu ku soo korno qoysas intooda badan narjisiin ah nacasnimo ku wada nool nin iyo islaantiis ishabaarayo oo isku dhagan oo dilayo oo balaayadu ka afkaada ka qubanaysan ku soo kornay intii Ilaahay naxariista mooyaan waa iyagana maamahaya bixiyo Soomaalidu oo yiri nin iyo naagtiis heshiisna ma ahan col ma ahan ما عقل كل سنة ما علم كل سنة ما شرعنا كل سنة ما وضعيني أن كنا نولين بكترجمة بس أنتي أنو أرجني تذكي سايستيس قبي بالغو ترجمة بس تي بالغو ديك لغو حير بيكت اللغة ديك أنت ما ديه كرامرك فرحية مبارك أنت اللغو هايستو لا سحر بانشرين لا فتال لما كلا جرين
laakiin waa un dad isguursaday oo isjeclaaday da'day doonaan hal ekaadeen xaaladday doonaan ku noolaadeen laakiin annaga waxaan rabnaa qulqulatada iyo mushkiladaha ka helna wejigeedii waa isbedelay baa layidhi jirkeedii waa isbedelay baa layidhi mar walba waa xanuunsan tahay baa layidhi rafaad baa ka muuqda oo iska wadwataa lax xarigga qoor looga xirtay oo caqiiqo ama wanqal ama udxiyo loo qarayo kala aad moodaa bay dheh waxa barnaamij laga sameynaya ee ciwaanada xaqaa'iqa ka fog loo samaysanayo waad yaabaysaa beejis magacyada lagu samaystaa arkaysaa kadibna leeyahay waa xanuunsanahay caajis baan dareemayaa isoo duceeya asagii sidoo kale mid magaciisa lagu samaystay hakada inta dad caan oo laga samaysana xisaab ma lahan oo gabdho sawiro inta la soo dhigo caawa haddaad cille igu heli lahayd maxaad igu samayn lahayd ayadii baa laga dhigayaa markaasaa dadku waa lo comment waxay ku soo qorayaan kaanama ayadii inay tahay laakiin dad baa ku qaraabinaya magacyada ku wada qoranay sawirada soo dhiganay wax walba group lagu soo share gareeyo hadda aragtid Facebook magac ku samaysan oo group lagu soo share gareeyo ilaa in calaamad kale oo tusayso qofkan uu rasmi u leeyahay mooyaane kulluhum waa been ay dad samaysteen ay ilaahay ka cabsanay tiiba marka lamaanahan lagu hayaa tii waa soo dhaaftay waxa la leeyahay waa is sixradeen ama wiilkii baa sixraday ama ayadii baa sixratay sixirka calaamadiisa maxaa lagu dareemaa qofku inuu qofka kala sixraday oo guurka uu ku khasbaday waxa lagu dareemaa baa la yiraahdaa awaamirtiisu soo diidan adoonnimo inuu ka dhigto dadka inuu ka jaro caalam ka jaro farxiya fiskal marka lagu sameeyaa leeyahay sidii caalamka waa laga jaray asxaabteedii iyo fanaaniintii waa laga jaray xagga waa laga jaray qofkii soo wac ma ka qabanayso asaga idan weydiisanaysaa meeshii bay ku dabran tahay muddo badan ay joogtaa qofkii waa isbedelay qofka naqaanin ma ahan furfurnayd ee faraxsanayd bulshaawiga idan de waa la sixrada marka khiyaali way waxaas waa been waxay la mid tahay waxaan aaminsanahay gabadhii nadaafad darro gurigeeda intay ku dhacay markii baranbarada iyo quraanjada iyo balaayada iyo qashinka iyo cayayaanku ay gurigii soo doonteen tiri waa la isxeeray waa la isxastay nolosheeda laga xunya saana ka dhacday ayadii baa dayacday qofka markii shaqadii laga rabay asagu dayaco ayuu intuu iska wareejiyo wuxuu u saarayaa meel ka baxsan awoodda wuxuu leeyahay waa nala sixray saana lagu sameeyay xaggay ka dhacday sixirka dambi baa ka gashay sixirku waa wax jira oo saameyntiisa loo dhibaatadiisa leh laakiin mar baa la dulminaya oo mar baan jinka laftirkiisa shaydaanka dulminayna nafteena iyo hawadeena iyo shayaadiinnimadeena annaga oo ka daran kuwii shayaadiinta insiga shayaadiinta jinniga ayaa wax walba inoo sababaya markaasaan shayaadiin iyo il iyo jin iyo xasad iyo sixir iyo xaggaas u saarnaa wallaahi sixirka laftirkiisa aan habaaraya baantay oo naga yaabay oo asagii baan ka daranahay dadka qaar sixirka laftirkiisa ka daran oo jinka laftirkiisa ka daran oo shaydaankii ka daran oo isha xaasidiinta ka daran alla ka baqi baa yaraaday xishoodkii baa yaraaday xalaal quudashadii baa yaraatay wax walbaan ku hadlaynaa kan soo kitaabka ilaahay ma ka idin muuqdo wallaahi oo billaahi oo tallaahi lamaanaha waxa laga sheegay waxba kama jiraan la sixir wala ghayr kadib iyo been waaye la socdo hadday isjeclaadeen hadday raalli isku yihiin hadday isku raageen maxaa ka rabtaan ranka ugu shidaysaa been iyo propaganda laga faafinaya ummadda ilaahay ee kitaabka ilaahay isku guursaday iyo sunnada nabi maxamed halka jooga noloshoodu siday doonto ha u noqotee ka fuqa dadka isqaba oo naftiina u sameeya meel dayacan intaas ku soo gabagabeynaya aadna waa mahadsantahay allah idin xafido hore u socda barakallahu fiikum